qodobada wararka raadraaca aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya oo xukun dilo ku fulisay 3 ruux oo loo haysto weerarkii Naasahablood 2 madaxweynaha maamulka Jubbaland oo ka warbixiyay dhibaatooyinka ka jira maamulkaasi dowladda federaalka Soomaaliya oo si kulul uga hadashay warbeen abuur la salax marayay shirdoonka dalka Kenya oo sheegay in al-shabaab weerar ay ku fulinayaan gudaha wadanka Kenya qabanqaabadii ugu dambeysay lagu soo dhaweynayo madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ka socota magaalada Marka u diyaar garoow daawadayaal qodobada oo faahfaahsan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar channelkan maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa saakay xukun dilo ku fulisay 3 ruux oo loo haysto weerarkii ka dhacay Naasahablood 2 ee magaalada Muqdisho saddexdan ruux ayaa loo haystay weerarkii lagu qaaday hotel Naasahablood 2 ka oo dad fara badan ay ku geeriyoodeen maxkamadda ayaa saakay dilkan ku fulisay 3 ruux waa kan mid kamid ah xeeraaliyaasha ku dhawaaqaya xukunka ragan taariikhdu markay ahayd 22kii bishii shanaad 2018 waxaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal Farxaan Maxamed Samantar 22 jir ah ina Safiye Maxamed ku dhashay Galguduud Cabdinaasir Dhaqane Xasan 19 jir ah ina Xabiibo Maxamuud ku dhashay Gedo Abshir Maxamed Xaaji Buule 22 jir ah ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Saakow kuwaas oo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah ka mid noqosho urur hubaysan oo lid ku awoodaha qaran dumis iyo in ay ka mid ahaayeen koox weerar argagixiso ku qaaday hotel Naasahablood 2 taariikhdu markay ahayd 22kii bishii 2017 weerarkaas oo sababay khasaare naf iyo maal ah waxaana ku geeriyooday weerarka inta la hubiyay 18 ruux iyadoo ay ku dhaawacmeen 47 ruux oo kale taariikhdu markay 30kii bishii shanaad 2018 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ku geeriyooday weerarkii Naasahablood 2 taariikhdu markay 22kii bishii 10 2017 maanta oo ay taariikhdu tahay 10kii bishii 7 2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ah ee maxkamadda ciidamada qalabka sida wabillahi tawfiiq sirdoonka dalka Kenya ayaa sheegay in al-shabaab ay weerar ku yihiin qaybo kamid ah gudaha dalka Kenya sirdoonka dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay in al-shabaab qaybo kamid ah dagaalyahanadooda ay gudaha u galeen Kenya iyagoo hubkooda wataan waxayna sheegeen in hub u badan miinooyin ay diyaariyeen al-shabaab ayna doonayaan in goobo muhiim ah oo gudaha Kenya ku yaala ay weeraraan sirdoonka ayaa dignin xoog leh ka soo saaray in al-shabaab ay doonayaan in bara muhiim ah oo ku yaala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya laga yaabo in weerar ay ku qaadaan labada bil ay feedan ugu soo haysa ciidamada dalka Kenya ayaa difaac xoogan la geliyay sida uga hortagaan hadalkan sirdoonka Kenya ka soo yeeray dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay warbeen abuur oo maalmihii dambe la isla dhaxmariyay madaxtooyada Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay wararka been abuurka oo baraha bulshada la isla dhaxmariyay warkan ayaa waxa uu ahaa in madaxweyne Farmaajo dhawaan uu doonayo inuu tago magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya asagoo cadaadis lagu saarayo inuu ka tanaasulo badda Soomaaliya ee Kenya muranka ay gelinayso waxaana cadaadiskaasi madaxweyne Farmaajo saaraya dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka sida la sheegay balse madaxtooyada ayaa waxay sheegtay in badda Soomaaliya ay Kenya muranka ay gelinayso wax gorgortana aysan ka galeynin dowladda federaalka Soomaaliya dacwadii maxkamadda ICJ-dan ay sideeda tahay qabanqaabadii ugu dambeysay lagu soo dhaweynayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxay ka soconaysaa magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagaraan ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu gaaro magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha ayaa ka soo ambabaxaya magaalada Xudur asaga ay wafdi balaaran oo golihiisa wasiirada kamida sidoo kale madaxweynaha ayaa safarkiisa waxa ku welinaya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madax kale wafdi ka horeeyay uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Najax ayaa horay u gaaray magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose
gudoomiyaha magaalada Marka Cabdullaahi Cali Axmed Waafow ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen inay soo dhaweeyaan madaxweynaha iyo wafdigiisa. warkii aad ka daawanayseen raadraaca wararka daawadayaal waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar channelkan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka.